السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسود هذا برنامجك معنا هراء هذه سنة محاضرة الشيخ محمد إدريس مركا وكشكيني أرنت الصومالية يا أرنت الصومالية يا دبعتها حيث الصومالية وكشكيني ليسبا وحكرته نقطي دتك مفسدين تأها قبيلة وحي كنتا انت حني إني صهر مرتو أو ماشي الريركا أي يدو أفضوبته انت وناكسنين حشوته أو قلال مرتو وحين نقطة دتك الصومالية دتك هذه وقوم مسكحفين وقوم أقوم بدنا وقوم هالكمن إلى أدون كلايس كهذان كعرران شوي قاس بيأدس حن وعن قيمين إلا ماشي لما قيمينا يا أقون لما قيمينا يا واي أرقنمو لما قيمينا يا ضدنمو لما قيمينا يا خبرات لما قيمينا يا علمي لما قيمينا يا محل قيمينا يا رير هبل كلية رير كلية أنا ده كوا اللي تهفى سوق لي كرا هذا قصاري mar haddii qiimayntu ay tahay qiimayn reer hebel marka waxay noqotay in dadkii inaga wanaagsanaa ay bannaanka taagan yihiin nabi muuse calayhi salaam markii uu ka tegayay ilaahay ballantiisa aadayay ayuu wuxuu ku yiri walaalkiisa haaruun akhlifnii fi qawmi wa aslih ولا تتبع سبيل المفسدين قبيلك waxa ku jira qabiil kasta waxa ku jira dad muslixiin oo wax hagaajiya oo toosan oo aqli fiican oo aqoon leh iyo dad xun oo mufsidiina ya mufsidiina baa ku jira mufsidiinta haraacin buu yirtaladooda hayeelin ee wax hagaajiyo wax toos daa ku imanay marka waxa qabiiladu keentay mufsidiintu inay soo hormaraan muslixiintuna meelaha ku dhundhuntaan ama meelaha ka tagaan oo dadka kafaada laha cararaan marka maalintii uu sheekhu u soo dhaxayay wixii uu sheegay oo toos ah baa live wax ugu socdeen baraha bulshada ya marka ninkan waa taqaanaa malayna farataag waxa weeye nin fiican maaha waxa weeye wasiirka oo amniga ee Soomaaliya waxa weeye nin dadkiisa wax taray maaha nin oo xumaata dadkiisa u keenayo weeye laakiinse ninkaas positionkaas waxa halkaas gaarsiiyay waa qabyaalad weeye يا علمي كم قارن وحتركم قارن ودتك سحتره يا قبيلة بهالكسجيس مركا قبيلة تذكر وحن بهالكس جارسينيان وجيسنيان قبيلة درت هذا أنا فيرسو سلايجي بهاد دعوانية يا واربع عقلي جاوي شاكلي هالكاسي مريسا وشاكم محوياي كذا إن لقلي بلايا لقشيد الضب كذا أو شيء دولة نمدي لقو قضية oo gargaarkeedii lagu qadiyay oo dawladnimadeedii lagala tagay oo buundooyinkeedii ay badda wali dhex sabaynayaan wabiga ay dhex sabaynayaan oo dawlad baan ahay meeshaan dib ka jirta aysan dhihin nin wixii dhibaan dheelmaa la yiri anigu dhibkaas ay haya kuleelkaas gadow kala idin soo dirayaan dan idin ma wado dawladii soo dirtana dan idin ma wado hadday tahay darajo waxa weeye ciidamadana halkaas wiilasha joogo waa go'dan sida naagar dhashay hoganayaan ciidankuna wuxuu muraal ku yeeshaa ciidanku ma xumaado inuu askari madaxdiisu xumaata moogi darajo ma helo oo wax dalcad ma helo gobolka gado maalin walba la dalcad baa soo martay wasiirada nadiga madaxda nadiga xildhibaanada iyo sanatarada nadiga baatiin haday hooyooyinkiin baan idin sheegeen habarta ma jirteen baan idin sheegay waxa dilahaya dadkan mid aan wax ma garad ah labadaas wafti ee kala jooga labada meelood oo intuba reegada yihiin waxay awoodi laayihiin inay inta isu yimaadaan laba meel baa laga soo kala diray ay yiraahdaan war dadkanaga maxaa dan u ah inta isu yimaadaan ay tashadaan intaas kaliya awoodi laayihiin marka dadka duqeyda intuu jeedeen inay ka dacwoonayaan waa kana ya farataag weey marka asaga hadda inta ka maqli doontaan weligiis wuxuu tara ma jirto koob shaaha inta dadkaas uu keenin ya inuu dib u siyaadiyeen maahayna wax kale uu qaban asaas markaad furiyo dhageysaba laga bilaabo 13 sano oo madaxweynaha isagu ahaa anna 3 sano kamid ah madaxweynaha ku ahaa bar waliba laga soo bilaabo 2013 ilaa hadda waxa socday khayraadka iyo taakuleynta dawladda Soomaaliya Jubbaland waa ku socotay haddii ku socotay waligeed goolkan gada $1 oo ka soo gaaray ma jirin maqlayseen ninkan intaas sano oo madaxda meeshka ahaa weligiis waxa weeye koob shaaha xitaa ma soo dhicin uma keenin ya meeshaan wuxuu yimaaday waxa weeye ninkan waa mushaarqaato wey siyaasad waxa kama oga marka inta wuxuu imaaday in oo xasan sheekh beentu la fadhiyay xamar inuu dadka gado oo intuu yimaado farataag raas kamboni iyo kismaayo waxay isu jiraan
300 kilomitir wax duulaan oo Kismaayo lagu aha ma ahayn wax loo socday Kismaayo ma ahayn waxa loo socday in la buuxiyo goobihii ay ka baxeen admis si qawaarij loola dagaalamo Axmed Maxamed Islaan magaalada uu joogo waa Kismaayo 60 kilomitir bay u jirtaa Jamaame 60 kilomitir u jirtaa weligiis dagaal muusan u aadin 300 kilomitir ciidan joogo oo calanka jamhuuriyadda uu yiraahdo ka baxaano 15 bari u qabtay 15 markii dhamaatay xabad buu ku bilaabay wali asoo 300 kilomitir aaday ma bajiro qori fartaag wuxuu u tagay inuu ciidan abaabulo reer hebel abaabulo oo soo baxay been waay waxaan u imid in ilbaxnimo la gaaro qof cod la aado Garbaharey waa magaalo madaxdii labaad ee Jubbaland magaalo madaxdii cadow ah haysto waxa way meesha la yiraahdo Bu'aalo waay Kismaayona waa magaalo madaxdii ku meel gaarka ahayd ee ganacsiga waa sida Boosaaso kale hadduu diiday oo yiri muxuu ahaa maya lagama dhigayo asay ku ekaanaysaa magaalo madaxda kale sheedan baa haysto iyo shabaab midaan way mid isku imaanayo oo reer Jubbaland oo isku imaanayaan naga war sugayaan wax inta noo yimid le war bulshada walbaalana oo qoraxda taagan oo qalawlaha wadato maxaad ka dibsanaysaan oo maxaad ka cabanaysaan wax noo yimid ma jiraan saaka oo hawshii dawladdu ay gabagaba tahay oo 4 sano iyo bar la marayo sanad iyo bar ay u dhiman tahay in la yiraahdo waxba la idin qabanaya horta aniga fakar ahaan boostay ahaan ama ka naxa ama ka farxee waxaan u arkaa waxaan waxba ka jirin oo shimbirayo heesa haddaad wax noo qabanaysaan buundooyinku sanad iyo 5 bilood bay go'an yihiin mas'uulkii loo doortay oo u dhaartay dalka iyo dadkan baatiin maydan iman waxna uma idan qaban wax agabana uma idan keenin marka ninkan liita oo dadkiisa aan wax tarin oo dhibaatada u soo kordhinaya waxa weeye dadkii laftigooda baa daba taagan oo support siinaya oo gadaal ka soo riixaya yaa 1 sano 2 sano 3 sano maaha inta uu dhan uu siyaasad gacanta kula jiray way daba taagan yihiin sidaran waxa weeye welina daba taagan yihiin yaa wax la soo dhahay ma iga afka ka dhahay dhigisaba sanatan wax Jubbaland noo horseeda adaa u horeeyay oo dalka u horeeyay wax Jubbaland noo horseeda waana kugu raacnay halkan markaa timid waa kugu ayidnay waa kugu sacabtuna iyadoo Garbaharey diidan tahay baan kugu sharafnay oo gadoo dhan sanka kaaga talo ku raacina dawladana wax nooga maad qaban tanna wax nooga maad qaban billa calaag wax noo qabta haddaydan wax noo qabanayn gaati cad mar yaad baan hayay subkaana dilina waxa kale oo keena sababta keenta qabyaaladda waa aqli xumo aqliga bani aadamka ilaahay galiyo uu ku karaameeyay gaal iyo muslim buu ku karaameeyay laakiin haddaanu adeegsan aqliga haddaanu isticmaalin oo uu yaraado oo dantiisa iyo maslaxadiisa aanu ka fikirin aqligii baa ka taga oo yaraado oo shuuqa wasaaradda isku jideen sheekha dhahayay waxa weeye maanta Soomaaliya waxa aqliga la dhaho ma shaqeeyo yaa jacaylka loo qabo qabyaaladda baa shaqeysa yaa marka saas waa musiibo weyn wey yaa dadku waa weynaa yaa oo waliba qabiilooyinka ugu weynaa markii ay dad oo mas'uuliyad loo dhiibayo kooda ugu liitay soo dirsadaan heshay kuwa fiican soo dirsan lahaayeen yaa taas waxa weeye waa ceeb wey iyo nasiib daro yaa taas waxa weeye waa arrin taariikhda u geli doonto wey yaa marka arrintan oo inta ku jideen oo ninkan furataaga arrin oo asaga reerkiisa keliya ku kooban maaha Soomaaliya dhan bay ka jirtaa oo musiibadan ka jirtaa